muuqaalkan aad arkaysaan daawadayaal waa magaalo madaxda Burco ee gobolka Togdheer oo sida muuqaaladan aad ku arkaysaan ay dadkeedu boqolkiiba 90 lagu tilmaamo in ay yihiin dad muruqmaal ah oo si xor ah iyagu u xoogsada. waxa aanay magaalo madaxda Burco ee gobolka Togdheer ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hodanka ku ah dhinaca khayraadka biyaha. haddaba wakaalada biyaha ee magaalada Burco ayaa waxa ay ahayd ka hor xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo intii aanay talada dalka la wareegin mid ay ragaadiyeen dib u dhacyo baahsan iyo dayac dhinaca ceelasha ah oo haystay, iyadoo intaasi ay u sii dheerayd dayn fara badan oo lagu lahaa. waxa aanay dib u dhacyadaasi iyo dayacaasi dhinaca ceelasha iyo weliba dayntaasi ay kaga soo kabatay muddadii 5 sanadood ee u horeysay ee xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay talada dalka haysay, iyadoo oo dhinaca kalena ku tallaabsatay 5 sano ee u horeysay ee xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay jirtay horumar ballaaran oo dhinaca biyo ballaarinta iyo gaarsiinta biyaha magaalada Burco. waxaanay wakaalada biyaha ee gobolka Togdheer ee magaalada madaxdiisa Burco ay ka mid tahay hay'adaha dawliga ee ugu tunka weyn ee ka jira magaalada Burco. waxaana taasi waxqabad dhaba lagu xasuustaa in uu markaasi kaalin weyn ku lahaa biyo ballaarinta magaalada Burco ee gobolka Togdheer maareeyihii hore ee wakaalada biyaha oo isagu ka hirgeliyay mashaariic fara badan oo dhinaca biyo ballaarinta isla markaana isaga oo la wada og yahay in uu biyo ku filan gaarsiiyay dhammaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Burco ay ka kooban tahay. bariyaha Burco ayaa wax soo dirsay wakaalada biyaha ee magaalada Burco dib u dhacyo baahsan iyo weliba waxqabad la'aan uu sababay maamul xumo ka dhalatay maareeyaha haatan ee isagu markaasi maamula wakaalada biyaha ee gobolka Burco. waxaanu ku eegi doonaa barnaamijkan documentary-ga dib u dhacaasi haatan la soo dirsay iyo gabaabsigaasi biyaha ee ay haatan la dirska yihiin xaafadaha kala duwan ee magaalada Burco guud ahaanba ku yaal. barnaamijkan ayaynu si faahfaahsan ugu eegi doonaa maalmaha soo socda. hawtayman la'aanina in aad si taxana ugala socotaan taxane news.